xogayaha dowladda hoose ee Burco Aamin Cabdilaahi Yaasiin ayaa sameeyay olole ballaaran oo lagu xoojinayo fayadhowrka bilicda magaalada iyo banaynta wadooyinka muhiimka ah ee degmada Burco. Ololahan uu hogaaminayay xogayaha dowladda hoose ayaa ahaa mid lagu hubinayay fayadhowrka meheradaha ganacsi ee magaalada, iyadoona intii uu socday ololahani dowladda hoose ee Burco ay tallaabo sharci ka qaaday meherado kala duwan kuwaasi oo fayadhowrka goobahooda ganacsi hooseeyay. xogayaha dowladda hoose ee Burco ayaa muwaadiniinta leh meheradaha faray sidoo kale kor u qaadida fayadhowrka meheradaha, isagoona sheegay xogaya Aamin Cabdilaahi Yaasiin in ay muhiim tahay ilaalinta badqabka caafimaadka bulshada ay wax ka iibinayaan ganacsatadu. Sidoo kale ololahani intii uu socday waxa lagu baneeyay wadooyinka faras magaalaha ah ee degmada Burco. xogayaha dowladda hoose ee degmada ayaa faray muwaadiniinta leh goobaha ganacsiga ee wadooyinka xidhay banaynta wadooyinkaasi, isagoona uga digay xogaya Aamin Cabdilaahi Yaasiin muwaadiniinta wadooyinka soo galay xidhashada wadada. xogayaha dowladda hoose ee Burco mudane Aamin Cabdilaahi Yaasiin ayaa muddadii uu joogay si weyn u dardargeliyay shaqada dowladda hoose ee Burco ay u qabato shacbiga, isagoona xoojiyay kormeerada taasi oo saamaxaysa ka warqabka shaqada iyo howlqabadka maalinlaha ah ee dowladda hoose ee Burco u hayso bulshada. ololahan uu hogaaminayay xogayaha dowladda hoose ayaa ahaa mid lagu hubinayay laguna xoojinayo shuruucda dhismayaasha iyo nidaamka dowladeed ee dalka. Abdullaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, warbaahinta qaranka Somaliland, Burco.